waddankan waxaan imid labadii kun iyo 18 bishii koobaad baan imid aniga oo dalxiis ah indhaynayana nin Turki ah ayaan la kulmay kadibna waan wareystay wuxuu igu yiri maquladan soo socota oo aan ku soo koobayo wixii waxaan ka aaminsanahay waddankan wuxuu yiri alladhi la yanjahu fi Istanbul la yanjahu fi hayatihi qofkii Istanbul marka uu joogo Istanbul aan ku guuleysanin noloshiisa oo dhan kasta waxa laga yaabaa noloshiisa inuusan ku guuleysanin baa laga yaabaa maxaa yeelay dad badan baa jooga waa ubucdi adduunyada waxay kulmisay xadaarooyin badan wada noolaansho badan baa ka jira dadka Soomaalida ahna waxaan u maleynayaa in Istanbul inay qiimo gooni ah ugu fadhiso iyo inta islaamka ah baylan waa caasimadii islaamka weeyeen Turkiya maxaynu ka baran karnaa Turkiya waxaynu ka baran karnaa inaynu fahanno dawladnimada madaxdii iyo aqoon-yahankii iyo maaragtay hay'adihii amnigana dawayna la joogaan insha Allah qaar kalena waxa laga yaabaa inay weerahan dib ka maqli doonaan inaynu wada noolaano insha Allah tabaaraka wa ta'ala inaynu fahanno oo aynu is-ogolaansho waliba lagu sundulaysan yahay maaha imaqalun maaha inaynu is-ogolaanno oo waliba qasab ah inaynu Turkiga ka baranno ayaa loo baahan yahay wadaniyada iyo ninka siyaasiga ah mucaaradkiisa inaynu kala saarno ayaa loo baahan yahay waxaa sharaf ah inaan halkan soo dariishado oo waliba marxaati gashanaya saaxiibkayga iyo xabiibkayga qaaliga Sheekh Saciid Raage annaga oo joogna magaalada Frankfurt ee waddanka Germany oo markaasi ay dhibaatooyin waa markii inqilaabka waddankan uu ka dhacay bay ahayd baan u maleynayaa ayaa waxaan kula kulmay maqaaxi weyn oo meesha ku taala nin Kurdi ah oo ka soo horjeeda siyaasadan madaxweyne Tayyip Rajab Erdogan ninka isaga ah wuxuu igu yiri ma Soomaali baad tihiin ha Soomaali baan nahay baan ku niri wuxuu yiri maxay isu dilaysaan markaas waxaan ku niri waa iska un arrimo kale wuxuu yiri anigu Erdogan haddii qol la igu soo gelin lahaa waan dili lahaa waa nin Kurdi ah oo ganacsada ah laakiin hantidaydu waxay dhan tahay buu yiri ilaa 50 milyan oo euro Erdogan baa maalin dhaweyta hadlay leerihii baa hoos u dhacay wuxuu yiri dadka Turkida ah ee muwaadiniinta lacagtooda waa inay u bedelaan lacagta leeraha 50 milyan baa bedelay buu yiri 15 milyan oo euro ayaan khasaaray inaan Erdogan u helinayo ma laakiin leerahan u helinayaa buu yiri inaynu ka baranno ayaa loo baahan yahay waxyaabahaas oo aynu siyaasiga iyo wadaniyada aynu kala saarno shaqada inaynu ka baranno Turkida waxaan u maleynayaa maqaaxiyaha markaad tagtaan oo shaah iyo wax la cabayo markaad sonkortaynu aad u cabnaa sonkorta la fiiqdo oo la saaro markiiba cid uun goor lala booday qashinkii sonkorta arki maysid marka shaqada mustawaheeda kala duwan haday noqon lahayd dhan hoggaan iyo siyaasad haday noqon lahayd dhan nadaafadeed haday noqon lahayd dhan dhisme waxaan deganahay magaalada degmada Bashaak Shahiir oo meelaha ugu quruxsan Istanbul lagu tiriyo meesha la yiraahdo gurigeyga hoostiisa waxa laga dhisay maaldood video ka soo duubay kambaniga ugu casrisan oo Park Mavera la yiraahdo oo wax dhisaya ayaa soo duubay saddex nin baa ka shaqeynaysa kambaniga oo dhan yaani booyadii shubka shubaysay nin halka ka maamulaya iyo saddex nin inta mashiinada la samaysanayay annagu waxaynu ku mashquulsanayn dib u heshiisiin wax wanaagsan laakiin waxa weeye aqligu hadii uu ku mashquulo dib u heshiisiin iyo waxaan maaragtay laga maarmi karay oo aan horumarba loo xaqiisa loo jeesanin waxa laga yaabaa inaan wax badan aan la qabsanin baa laga yaabaa cibaadada maadaama la yiri wadaad baa tahay cibaadada aan tusaale ka bixiyo cibaadada salaada ugu muhiimsan Soomaa waa hal doorkii cibaadada salaada waddankani way askaraysan tahay Soomaalidan arkin imaamku markuu yiraahdo assalaamu alaykum hal marba assalaamu alaykum leeyada hal marba xaqna assalaamu alaykum leeyada muadinkiina ala rasulina salawat yaga ka yiraahdaa waa lama ogola madaahibka lama ogola dawladnimadii baa marka meel kasta gashay marka shaqada inaynu ka baranno insha Allah tabaaraka wa ta'ala insaanka oo la ixtiraamo waa la iga hormaray Soomaalinimada inaynu aaminno insha Allah Soomaalinimada
inaynu aamino waligay ma arkin qof Turki oo wadankiisa wax ka sheegaya waligay intaan noolaa ama intaan Turkiga imid qof Turki ah oo wadankiisa wax ka sheegaya ma aanan arkin waana arrin wanaagsan innagana waxa laga yaabaa kulamadeenna iyo qoraaladeenna siyaasadeenna muxaadarooyinkeenna xitaa baraha bulshada iyo waxyaabaha dadka looga qosliyo in aynu dadka ugu maadeynayno meelaha ay Soomaalidu ka liidato anigu arrinka ma qabo meel aan lahayn negative iyo positive ma jirto laakiin markii positive-ka al-aql al-kabiir marka uu shaqeeyo oo waxa wanaagsan laga shaqeeyo la amaano wixii lagu khaldamay ama lagu turunturoodayna si wanaagsan loo adeegsado horumar baa imanaya madaxdayda sharafta leh mufakiriinta iyo aqoon-yahanada howlwadeennada maandeeq waxaan leeyahay mabruuq waxaan hadalkay ku soo gabagabaynayaa alxamdulillah alladii binicmatihi tatimmu as-saalihaat Soomaaliya ha noolaato qarannimadu ha xididaysato insha Allah ilaahay bogeena burcad ha isu mariyo ciddii Allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay wadankani inuu horumar gaarsiiyo Allah subhanahu wa ta'ala hoggaanka ha inoogu dhiibo hogaamiyaasha ay ugu horeeyaan madaxdan sharafta leh ay hor fadhidana Allah subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadda ay hayaan Allah u fududeeyo ilaahay oo kaliya ayaa wax fududeyn kara Allahumma amiin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حنبلي.